casharkan waa casharkii sagaalaad waxa uu la socdaa casharkii lixaad oo aan kaga hadalnay capacitorka waxa la yiraahdo ama madaxiyaha. casharkan waxaan kaga hadlaynaa series and parallel capacitors ayaan kaga hadlaynaa madaxiyaasha u xiran sida taxan iyo kuwa isbarbar yaallo ayaan kaga hadlaynaa. waxaa idin soo diyaariyay Somtronics ayaa idin soo diyaarisay. marka sidii aan ku heli lahayn markii circuitka oo capacitors ay ku jiraan ayna taxan yihiin ayaan waxaan kaga hadlaynaa qaybtan koowaad. sida u jeedaan ama sida la socotaan capacitorka waxa uu leeyahay laba plate ayuu leeyahay ama laba saxan. labadaas saxan ayuu wuxuu ku keediyaa danabka markii battery ama supply lagu xiro ama voltage lagu xiro. marka capacitorka waxaan leenahay awood ayuu leeyahay oo ku keediyo charge. taana waxaa lagu cabiraa wax la yiraahdo farad. marka capacitor koowaad halkan awoodda uu ku keediyo charge ku keediyo waxay la mid tahay 60 microfarad. kan labaadna 40 microfarad, kan saddexaadna 20 microfarad. marka haddii su'aalna la warsado la yiraahdo awoodda uu ku keedinayo ama capacitorska uu leeyahay circuitkaas markii la isku dardaro maxay tahay? sharciga lagu helo marka waxay noqonaysaa totalka 1 c total oo ah capacitorska totalkooda markii la isku daro capacitorska waxaa lagu helaa 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. waa markay u taxan yihiin sida silsilada oo kale ama series u xiran yihiin. marka su'aasha kale nala warsan kara waxay tahay charge-ka uu circuitka uu leeyahay markii capacitorskaas sida silsiladii loo taxo maxay tahay? marka q totalka waxay la mid tahay capacitor kasta inta charge uu keep gareeyay ayay la mid tahay. marka capacitor total waxay la mid tahay q1 charge-ki koowaad, charge-ki labaad, charge saddexaad kulli waa isku mid. marka charge-ka circuitka markay ay u xiran tahay series u xiran tahay ay ku jiraan capacitors total charge-ka waa isku wada mid. waa marka sharcigii labaad. haddiina la warsado soo saar totalkii charge-ka uu lahaa circuitkaas uu lahaa markii capacitorska ay taxan yihiin waxaan ku helaynaa marka hore waa inaan raadinaa capacitorska totalkeeda oo ahaa sharcigan 1/c2 equals 1/c1 c2 and c3. markaan totalka helno waxaan ku dhufanaynaa voltageka batteriga oo ahaa batteriga voltageka halkan ayaa isku dhufanaynaa. ka markaa wuxuuna siinayaa circuitkaas total charge-ka danabka uu keydinayo ayayna siinaysaa. marka su'aasha kalena warsan kara waxay tahay capacitor kasta oo circuitka ku jira inta voltage uu isticmaali karo ama uu lumin karo waxa loo yaqaano voltage drop. marka kaana sharcigiisu waxay tahay marka hore waxaan helnay q total marka charge total markaan helnay voltageka koowaad marka waxay la mid tahay q total charge-ki totalkiisi oo loo qeybiyay capacitorska koowaad. voltageka labaadna sidoo kale waxay la mid tahay q total oo loo qeybiyay capacitorka labaad. voltage saddexaadna waxay la mid tahay q total oo loo qeybiyay capacitorka saddexaad. markaan helno voltage 1 iyo voltage 2 and 3 markaan helno waa isku dareynaa. taana waa inay la mid noqotaa totalka voltageka circuitka uu isticmaalayo. marka sharcigaas ayaa lagu helaya voltageka. annagoo isticmaalayna sharcigii hore aan usoo baranay oo ku saabsanaa capacitorska u taxan sida silsiladii circuitkan oo kale markaan kasoo qaadano capacitor koowaad waa 60 microfarad waxaa lagu taxay capacitorka labaad oo 40 microfarad ah waxaa lagu sii xiray capacitorka saddexaad oo ah 20 microfarad. marka kulligood waxay ku xirmaan battery 60 volt ah. marka circuitka waxaan leenahay waa series circuit. marka lugta capacitorka koowaad waxay ku xirmaysaa lugta labaad lugta saddexaad sidaas oo kale way wada taxan yihiin. marka su'aasha la warsaday waxay tahay maxay tahay capacitorska awoodda uu ku kaydin karo tamarta totalka markii la isku daro maxay tahay? taa waxaa lagu helaa sida sharciga hore aan usoo sheegnay 1/c total ct waxay ka taagan tahay c total capacitance isku darka capacitorska ama tamartooda 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. marka haddaan sharcigaas isticmaalno
kan ugu horeeya 1 over C1 wuxuu la mid yahay 60 times 10 to the power of negative 6 F farads. sidaa la socotaan micro waxay ka taagan tahay 10 to the power of minus 6 oo lagu daray 40 times 10 to the power of negative 6 farad plus 20 times 10 to the power of negative 6 oo ah capacitorka saddexaad. markaan reciprocalka aan u bedelno waxaan helaynaa capacitorka koowaad numberkaas 666 plus 25,000 plus 50,000 markii la isku daro wuxuu noqday 91,666 farads. markaan gedino reciprocalka jawaabtaan helayna waxay tahay 10.9 times 10 to the power of negative 6 farads or ama 11 microfarad. marka total capacitanceska series circuitka uu leeyahay markii la isku dardaro waxaan helaynaa 11 microfarad. marka saddexda capacitor waxay noqonayaan hal capacitor oo qiimihiisa uu yahay 11 microfarad. haddaan rabno inaan helno total chargeka ama danabka uu keydiyey capacitorska markii la isku dardaro maxay tahay taas waxaan ku helaynaa since capacitorska ay series u taxan yihiin sharciga wuxuu leeyahay chargekooda waa isku wada mid. marka chargekii totalka wuxuu la mid yahay kan koowaad kan labaad iyo kan saddexaad waa isku mid. marka sideen ku helaynaa total chargeka sida hore usoo sheegnay total chargeka waxaan ku helaynaa capacitorka totalkooda oo lagu dhiftay voltagekii. sidaa la socotaan capacitor totalkii waxaan ku helnay 11 microfarad ama 10.9 times 10 to the power of negative farad. markaan ku dhufano C total times voltagekii markaan 60 ku dhufano 10.9 times 10 to the power of negative 6 oo ah capacitorka totalkiisi waxaan helaynaa 654 times 10 to the power of negative 6 ama 654 microcoulombs ayuu la mid yahay chargeki. maadaama uu chargeka lagu cabiro coulombs waxaan helnay 654 times 10 to the power of negative 6 microcoulombs ayaan lahaa. marka hadda waa inaan raadinaa voltageka uu isticmaalay ama voltage dropka waxa loo yaqaano uu isticmaalay capacitor kasta waxaa lagu helaa marka hore sidaa usoo sheegnay voltageka koowaad waxaa lagu helaa total chargeki oo loo qeybiyey capacitorki koowaad. marka isu qaybino 654 times 10 to the power of negative 6 oo ah q totalki waxaan helaynaa oo loo qaybiyey capacitor koowaad oo ah 60 times 10 to the power of negative 6 jawaabtaan helina waxay noqotay 10.9. kii labaadna sidoo kale q total c2 loo qaybiyey wuxuu noqday 16.35. kii saddexaadna wuxuu la mid noqday sidoo kale 32.7. marka voltageka totalka ama voltageka bateriga waa inay la mid noqotaa saddexdaasoo la isku daray. markaan isku darno voltage 1 iyo voltage 2 iyo voltage 3 waxay la mid noqotay 10.9 16.3 and 32 markii la isku darana 59.95 ama 60 volts. marka taa waxay noo cadeynaysaa circuitka voltageku lahaa oo ahaa 60 volt. marka sidaa ayaa lagu helaa markii capacitorska ay u taxan yihiin sida serieska u taxan yihiin ama sida silsilada oo kale. qaybtan waxaan kaga hadlaynaa capacitorka markii loo xiro parallel loo xiro ama ay isbarbar yaalaan. markaan leyna waa isbarbar yaalaan waxaan ka wadaa capacitorka markii battery lagu xiro lugahooda dhan waa isku hal meel ku xirmaan lugahooda hal meel ku xirmaan lugaha kalena isku hal meel ku xirmaan. marka lugahooda dhana kulli wada taxan oo batteriga ayay ku wada xiran yihiin. marka total capacitanceska oo circuitka markay u taxan yihiin isbarbar yaal u taxan yihiin waxaa lagu helaa C1 C2 iyo C3. marka waa isku daraysaa capacitor koowaad kan labaad iyo kan saddexaad waxaa loo yaqaanaa C total. voltageka oo capacitorka circuitka u taxan sidii isbarbar u yaallo waxay la mid tahay voltageku waa isku wada mid. marka voltageka capacitorka koowaad halkaas taalo midda labaad oo halkaas taalo iyo midka saddexaad kulli waa isku wada mid. marka voltage total waxay la mid tahay voltageka capacitor koowaad voltageka capacitor labaad iyo kii saddexaad. marka voltageku waa isku mid. total chargekooda waxaa lagu helaa adoo isku dhufto sida hore usoo sheegnay capacitorka totalka iyo voltageka. marka haddaan aan rabno inaan helno chargeka capacitor kasta
uu kaydinayo uu ku kaydinayo plateska ama suxuunta uu ku kaydinayo haddiina la warsado chargeka ama danabkana la warsado waxaa lagu helaa capacitor koowaad oo lagu dhiftay voltageka totalka capacitorka labaad chargekiisana waxaa lagu helaa capacitorka labaad oo lagu dhiftay voltageka totalka ka saddexaadna sidoo kale ayaa lagu helaa marka total capacitanceska total chargeka waxay la mid tahay capacitor koowaad chargekiisi capacitorkii labaad chargekiisi iyo capacitor high chargekiisi kaana waxay ku siinaysaa sidoo kale waana isku mid la mid noqdaan q totalka waa inuu la noqdaa capacitorska totalka oo lagu dhiftay voltage totalka marka taana waxay na tusaysaa sharcigii markay u taxan yihiin madaxeeyaasha ayagoo isbarbar yaalo marka hadda waxaan soo qaadanaynaa tusaale ayaan soo qaadanaynaa waxaana la warsaday capacitor totalka oo circuitkaas ana warsaday capacitor koowaad waa 60 microfarad kan labaadna waa 40 microfarad kan saddexaadna waa 20 marka waa isku dareynaa markii la isku daro waxay noqdeen totalkooda 120 microfarad voltageka sida hore usoo sheegnay markii madaxeeyaasha ay isbarbar yaalaan voltagekooda waa isku wada mid marka voltageka halkaas marta waa isku wada mid marka waxaa lagu helaa totalka voltageka waa 60 marka capacitor koowaad waxaa koraya halkaas 60 kan labaad 60 maadaama ay parallel ay isbarbar yaalaan voltagekii saas ayay la mid tahay haddiina la warsado total chargeka marka hore waxaan raadinaynaa qt oo ah chargeka oo saddexdaa capacitor ay leeyihiin waxay la mid tahay c total waxay la mid tahay q total waxay la mid tahay c total oo lagu dhiftay v total oo ah voltageka c totalna waxaan ku helnay 120 voltagekan waxa waaye 60 waa sidaa la socotaan marka chargeka ay total chargeka ay leedahay circuitka waxay la mid tahay 7.2 microcoulombs ayay la mid tahay marka haddaan raadino charge kasto capacitor kasto chargekiisa waxay noqonaysaa capacitor koowaad waxay la mid noqonaysaa charge koowaad waxay la mid noqon capacitor koowaad oo lagu dhifto voltagekii totalka ahayd markaan ku dhufano 60 microfarad oo ah capacitor koowaad aan ku dhufano 60 waxaan helnay kaas sidoo kale capacitorka labaad 40 microfarad 60 ku dhufo ayaan helnay capacitor saddexaadna 20 oo 60 lagu dhiftay totalki wuxuu noqday 1.2 microcoulombs markaan isku darno saddexda charge aan isku darno waa inuu la mid noqdaa total charge waa inuu la mid noqdaa markaan isku darno q1 q2 and q3 3.6 2.4 and 1.2 wuxuu la mid noqday 7.2 microcoulombs wuxuu la mid ahaa kaasna anagoo markii hore shortcut aan sameynay oo ahaa 7.2 marka sidaas ayaa lagu helaa chargeka markay u xiran yihiin capacitorska isbarbar yaalaan